oo wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Somaliland oo uu heliyo ku-xigeenka wakiilka Somaliland u qaabilsan hay'adda DFID ee Ingiriiska iyo agaasimaha waxda qorsheynta ee wakaaladda biyaha iyo Hargeysa ayaa maanta kormeer ku soo maray mashruuca biyo ballaarinta ee magaalada Hargeysa iyo sidoo kale xarumaha biyo soo saarka ee Geedeeble oo ay maalgelinteeda iska kaashanayaan Midowga Yurub iyo Sanduuqa Horumarinta Somaliland iyo SDF. Ujeedada kormeerkani ayaa ahayd u kuurgelidda halka uu marayo mashruuca biyo ballaarinta ee caasimadda Hargeysa oo la rajaynayo inuu dhowaan dhammaado isla markaasina ay caasimaddu hesho biyo nadiif ah oo ku filan. Sidoo kalena waxa ay wafdigu kormeer ku soo mareen mashruuca xanaaneynta harimacadka oo ay maalgelinayso dowladda Ingiriisku. Mashruucan ayaa waxaa ansixiyey wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Somaliland waxaana fulinteeda iska kaashanaya wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Somaliland iyo sidoo kale hay'adda Cheetah Conservation. Intii wafdigu kormeerka ku jiray waxay mas'uuliyiintu soo kormeereen qaybaha kala duwan ee mashruuca sidoo kalena waxay warbixino ku saabsan mashruuca iyo xilliga uu dhammaanayo ka dhageysteen howlwadeenada gacanta ku haya mashruuca. Kormeerkan oo ahaa mid waqti dheer qaatay kadib waxaa faahfaahin ka bixiyey mashruucan iyo xilliga uu dhammaanayo agaasimaha waxda qorsheynta ee wakaaladda biyaha ee Hargeysa Mudane Axmed Muuse Daahir waxaana hadaladiisii ka mid ahaa runtii mashaariic badan baa ka socota Geedeeble oo hadda gabagaba ku dhow oo la rajaynayo in bishan September insha Allah taala xariga laga jari doono mashruucan mashaariic fara badan oo ay naga caawiyeen hay'ado fara badan oo xagga horumarka ay naga caawiyaan oo ay ka mid yihiin Midowga Yurub iyo SDF oo ay ku shaqeeyaan dowladaha UK iyo Netherlands iyo Denmark iyo Norway. Marka maanta halka waxa sidoo kale farxad noo ah in la joogo Morgan Riley oo ka socda oo ah ku-xigeenka xafiiska Hargeysa sidoo kale muxuu ahaa madaxa mashaariicda Head of Development. Marka aad iyo aad baan runtii u soo dhaweynaynaa wasiirka iyo wafdigan ka socda wadamada inaga muxuu ahaa taageera xagga horumarinta. waxaan ku soo dhaweynaynaa xarumahan biyo soo saarka ee Geedeeble waxaanan rajaynaynaa insha Allah taala mashruucani markuu soo gabagaboobo bisha September in biyo laba laab oo intii ay magaalada Hargeysa hore heli jirtay laba laabkeedina insha Allah taala bilahan soo socda magaalada Hargeysa ay dareemi doonto. My name is Morgan Riley. I work at the British office here in Hargeisa. I couldn't be more proud and more thrilled to see all the work that's happened here over the last almost 12 years. Ku-xigeenka wakiilka hay'adda DFID ee Ingiriiska u qaabilsan Somaliland Mr. Morgan ayaa sheegay inay ahmiyad weyn siinayaan isla markaasina ay aad u danaynayaan sidii ay dadka ku nool caasimaddu ay u heli lahaayeen biyo nadiif ah oo ku filan. Sidoo kalena waxa uu wakiilku ku ammaanay dowladda Somaliland sida ay uga go'an tahay inay muwaadiniinteedu helaan biyo nadiif ah oo ku filan. Somaliland and outside Somaliland who've helped make this happen. It's such an achievement. Thank you. ugu dambeynna wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Somaliland Dr. Axmed Aadan Buuxane ayaa sheegay inay xukuumad ahaan ka go'an tahay sidii dadka ku nool caasimadda Hargeysa ay u heli lahaayeen biyo jaban oo nadiif ah isla markaasina ku filan. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaan maanta kormeer ugu nimidnay mashruuca Geedeeble ee biyo ballaarinta runtii shaqo aad iyo aad u culus baa la qabtay waana wax lagu farxo oo runtii bishaaro u ah shacbiga reer Hargeysa waxaa mahad Ilaahay ah maanta in inoo hirgaleen marka la isku daro ceelashii hore ee shiinuhu inoo qoday iyo ceelasha imika la qoday 18 ka mid ah maanta inay diyaar yihiin biyaha soo tuuraan sidoo kale 6 iska gabagaba badankooduna in mar dhowna ay ku xilmi doonaan nidaamka biyo tuurka ay ku soo xilmi doonaan dabadeedna ay noqon doonaan 4 ceel qorshaha imika hadda marka maanta la joogo 12,000 oo metrik tan ayaa awood loo leeyahay metr cubic ayaa awood loo leeyahay in loo diro mataqaana Hargeysa magaalada Hargeysa markaanu cabirnayna waxa laga yaabaa qofkii marka lagu cabiro 600 oo kun oo qof in ay biyahaasi gaari doonaan marka waa bamka kaliya maalintiiya marka haddii ay soo kordhaan 4 ceel kalena 6 ceel kalena waxa suurtagal ah inaynu biyo ballaaran oo xoog la'aan gaarsiin doono magaalada Hargeysa waxaan aad ugu mahadnaqayaa cid kasta oo nagala qayb qaatay
donoriska sida mataqaanaa ingiriiska oo kale iyo nimanka loo yaqaan SDF iyo hay'adaha kale adduunyada ee inaga caawiyay dhammaantoodba noocay doon ha noqdaan ishraaga dhisay runtii waxaan soo aragnay qalab sophisticated dhammaantiiba ah oo xataa waxaa ku xiran fiberkii internetka oo caddayn doona xataa meesha ciladu ka jirto quwadda biyaha yacni runtii waxa la odhan karaa wax aad u qiimo badan ayaa magaalada Hargeysa u soo socda oo waliba technology-ga casriga maanta aan maray la jaan qaadaya ilaahay waxaan ka rajaynayaa mashruucaasi mashruuc lagu guulaystay inuu noqdo si degdeg oo dhowna ilaahay idinkii loo soo daayo biyahaas